لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu albaqara. waxaa noogu soo dambeysay ama noo bilaabatay qisadii reer bani israa'iil, nimcooyinkii waaweynaa ee ilaahay u galay subxaana wa tacaala. in badan baa la xasuusiyey, waana la xasuusin doonaayo waxaa la soo yiri xusuusta nimcadeyda taasoo korkiina ahaatoon idinkugu nimceeyey. caalamka oo dhan baan idinka fadilnay, ama caalamkii wakhtigaa jiray waxaad ka cabsataan maalin naf wax u tari kartaa aysan jirin, aan shafaaciyo ergeyn laga aqbalaynin, cadli iyo madax furashana aan laga qaadaynin, aysan ahayn tu markaa loo gargaarayo. qisadoodii iyo nimcooyinkii loo galaa welina loo tilmaamayaa. waid najaynaakum min aali fircawn wadkuruu, xusuusta id wakti najaynaakum aan idinka korinoon idinka badbaadinay min aali fircawna, fircoon ahalkiisa. waqti aan fircoon eelkiisii idinka badbaadinayna xusuusta. yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen suu'a alcadaabi, cadaabkiisa ugu xun. cadaabkiisa ugu xun ayay idin dhadhansiiyeenoo waxay idin dhadhansiinayeen cadaabkan u xun. yudabbixuuna, waxay gowracahayeen abnaa'akum, wiilashiina. wayastaxyuuna, waxay ka xishoonayeen oo ay sii daysanayeen oo ay nolosha ku baaqi yeelayeenna nisaa'akum, naagihiina. wa fii daalikum kiinaana balaa'un, waa imtixaan oo min rabbikum, rabbigiin xaggiisa ka ahaaday, cadiimun ee markaa weyn. reer bani israa'iil waxaa la leeyahay waxaad xusuusataan wakhti aan idinka badbaadinay fircoon iyo aalkiisii, dadkii fircoon aan idinka korinay. waid najaynaakum, wakhti aan idin najaynoon idinka badbaadinay xusuusta min aali fircawna, fircoon dadkiisii. fircoon aalkiisii aan idinka badbaadinay xusuusta wakhtiga. yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinayeen suu'a alcadaabi, cadaabkiisa ugu xun. cadaab ka daran ma jiro. qoom dhan oo wiilkii u dhasha la qalo, gabdhahana la daayo, loo nadaysto in lagu shaqaystoo la addoonsado. waa waxyaabo aad iyo aad u dhib badan. waa cadaabkiisa ugu xune ummad la dhadhansiiyo, taasuu idinku dayay. weliba fircoon arrintaa wuxuu bilaabay wakhtigii ay suxaradii iyo dadkii ay u sheegeen in mulkigiisa uu baabi'i doono, sababna uu u noqon doono wiil reer bani israa'iil ka dhalan doona. taasaa waxaa kaliftay inuu amar ku dhiibo wiil kasta oo reer bani israa'iil u dhasha in la gowraco oo la qalo, gabdhahana markaa layska daayo si wax khidmada iyo hawsha u qabta ay markaa helaan. taasuu ilaahay tilmaamayaa nimcadaana markaa ilaahay wuu dareensiinayaa reer bani israa'iil. waid najaynaakum wadkuruu, waxaad xusuusataan id wakti najaynaakum aan idinka najaynay, idinka korinoon idinka badbaadinay min aali fircawna, fircoon ahalkiisa. yasuumuunakum, waxay idin dhadhansiinahayeen suu'a alcadaabi, cadaabkiisa xun. cadaabkiisa ugu xun bay idin dhadhansiinahayeen. yudabbixuuna, waxay gowracayaan abnaa'akum, wiilashiini. wiil kastoo ka dhashuu ballan ku qaaday amase amar ku dhiibay in la dilo. wayastaxyuuna, waxay ka sariiganayeen oo ay ka xishoonayeen, ay ka sii jeesanayeen ama ay nolosha u dhaafayeen nisaa'akum, naagihiin, waa gabdhihii. wa fii daalikum kiinaana,
balaa'un waa imtixaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday cadiimun ee markaa weyn. waid faraqnaa wadkuruu xusuusta haddana id waqti faraqnaa aan kala qaadnay, faraqna aan kala bixinay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala bikum adinka albaxra baddi, waqti aan badda idin kala furnay, fa anjaynaakum waan idin korinay, waa idin badbaadinay oo baddii inta laydin furay tiibaad ku korteenoo bannaankaad uga baxdeen. wa agraqnaa waxaan maashaynay oon biyo cabsiinay aala fircawna fircoon dadkiisii, wa antum idinkoo tanduruuna arkaaya, idinkoo arkayo u jeedoo dayaaya, yaa cadowgiinii la maasheeyey, yaa cadowgiinii biyo lagu qarqiyey oo ilaahay cadowgiinii halaagay subxaana wa tacaala. waa nimco kaloo reer bani israa'iil loo galay, ilaahayna uu xusuusinaya subxaana wa tacaala say alla ugu shukriyaan, say u gartaan dhibaatooyinkii laga badbaadiyey, heryadii iyo dulmigii saarnaa ee laga qaaday, kibirka ay maanta ku jiraan baa la dareensiinayaa inaysan istaahilin, in ilaahay dhibaato fara badan ka rafacay subxaana wa tacaala. waid faraqnaa waqti aan kala qaadnoon idin kala furnay bikum idinka sababtiina albaxra baddi, weliba qiso noo imaan doonta waayee mar allaala markii ay ka baxeen muuse, nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkii rumeeyey, badda ay isdhaheen ka tallaaba, gadaal mar allaala markay u soo laabteenoo baddii ay horay ka soo celisay, gadaalna ay ka heleen ama ay ka heleen oo ay arkeen fircoon iyo cadowgoodiiyo ku soo dhow, qaala asxaabu muusa innaa la mudrakuun, nebi muuse asxaabtiisu waxay dheen annagu waana la soo gaaray, waana la haleelay, gacantaana nala ku dhigay. nebi muuse asagoo hiqo ilaahay ku kalsoon ayuu yidhi kallaa inna maciya rabbii sayahdiin, ha cabsanina mana nala haleelin, saasna ha dhihina, waayo ilaahay baa micigeenoo nala jira, waana na toosin doonaayo asagaa nagu hanuunin doona meesha aan ku badbaadayno. markaa buu ilaahay amray inuu nebi muuse usha badda ku dhufto, baddii baa kala furantay. taabuu ilaahay tilmaama subxaana wa tacaala. waid faraqnaa wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan kala bixinay, aan idiin kala furnay, oon idiin kala qaadnay bikum adinka sababtiina albaxra baddi, fa anjaynaakum waan idin korinay, waa idin badbaadinay. wa agraqnaa waxaan maashaynay oo biyo lagu qarqiyey aala fircawna fircoon dadkiisa, wa antum tanduruuna idinkoo arkaya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. waid waacadnaa wadkuruu xusuusta haddana id waqti waacadnaa aan la ballantannay muusa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen ayaan la ballannay. uma ittakhadtum kadibna waxaad yeelateen alcijla dibigii baad ilaah ka dhigateen min bacdihi muuse kadib, wa antum daalimuun idinkoo daalimiin ah reer bani israa'iilay, idinkoo mushrikiin ahoo dibi caabuday, xaaladaasaad samayseen buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. waxaad xusuusataan haddana waqti nebi muuse 40 habeen ilaahay uu la ballamay, 40 habeen kadib meel hebel imow baa la yidhi, weliba 30 bay ahaydoo kadib baa 10 loogu daray. wawaacadnaa muusa 30 laylatan wa atamamnaaha b10 fatama miiqaatu rabbi 40 layla. 30 habeen baan muuse la ballamay, 10na waan ugu sii darnay, miiqaadkii ballantii loo qabtay 40 bay ku buuxsantay. waid waacadnaa muusa wadkuruu xusuusta id waqti waacadanaa aan la yaboohtanoo la ballan galnay muusa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen kadibna meel hebel imaa oo jabalu tuur imow baa la yidhi. uma ittakhadtum intuu idinka soo maqnaa oo meeshii ballanta ku maqnaabaad yeelateen haddana alcijla dibigii baad ilaah ka dhigateen min bacdihi asaga kadib. markuu nebi muuse soo aaday ballantii kadib yaa dibi caabudeen, wa antum daalimuun idinkoo mushrikiin ah. ilan dulmiga waa dulmiga ama shirkiga la dulmun cadiim, dulmi kan u weyn waayo waa dulmi fasheen, waad shirki samayseen bacdamaa dibi alla la caabudeen subxaana wa tacaala. xaaladaana xasuusta buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. min bacdihi waa nebi muuse markuu soo laabtay, qisayd ayadoo faahfaahsanna way inoo imaan doontaaye, nebi muuse markuu meeshii kusii maqnaa
yaa xulligii iyo quruxdii iyo ziinadii iyo wixii ay wadeen yaa ninka saamiriya intuu qabdo iyo qibdoosho aahaartii rasuulka jibriil intuu soo qaatay iyo wixii ay hayeen isku dardaray sansaan dibi buu ka dhigay dibigii baa codeeyey qaaluu haadaa ilaahukum wa ilaahu muusaa fanasiya war waa kanaa buu dhahay dibigii ilaahii muuseu caabudi jiraye markaa caabuda ka waayee qaar baa ku dhegay qaara isla markii qaatay nebi haaruun buu hore kula dardaarmay intaa kadib buu nebi haaruun in badan isku dayay inuu qoomka ka celiyo uu yidhi war jooga war xaaladdu sidaa ma aha sow uma jeedaan inuusan wax maqlin ma uma jeedaan inuusan waxba idin hanan karin mar allaala markiisaa uu u waaniyey ayay dhaheen annagu ka zuuli mayno inaan ku dheganahoon caabudayno xataa yarjica ilaynaa muusaa ilaa muuse noo soo noqdo saamiri baa xaaladaa sameeyey intaa kadib baa muuse u soo laabtay wuxuu dareemay wax allaala wixii ay sameeyeen horaa loogu sheegay intuu xagga ku maqnaa inay qoomkii baadiyoobeen alwaaxdii loxyuu heeye buu tuuray haaruun buu garkii madaxa ka soo qabtuu soo jiiday almuhiim qiso noo imaan doonta waayee xaaladaa xusuusta buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala waxaad xustaan waktigii wadkuruu id wakti waacadnaa aan la ballantanay muusa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen uma intaa ka bacdina ittakhadtum waad yeelateen intaa kadibna aad ka samaysateen alcijla dibigii ilaah min bacdihi muuse kadib wa antum daalimuuna idinkoo daalimiin ah uma cafawnaa kadibna waan idinka saamaxnay waaba idinka cafinay buu dhahay ilaahay cankum xaggiina min bacdi daalika markaa kadib yeelashadii aad dibigii ilaah ka dhigateen kadib ayaan idinka dhaafnay idinkoo saa ku sii socda oo mar walba dulmi edabdaro samaynaya yaa ilaahay nimco iyo gargaar idinla garab taagan yahay idinkoo alla kayrkii caabudoo dibi caabuday yaa haddana alla idinka saamaxay uma cafawnaa kadibna waan idinka cafinay cankum xaggiina min bacdi daalika markaa kadiboo dibigii aad caabudeen idan lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan inaad mahad celisaan baad mudan tihiin buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala uma cafawnaa waan idinka cafinoo waan idinka saamaxnay cankum xaggiina min bacdi daalika markaa kadib lacallakum waxaadna mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaanoo ilaahay aad u mahad celisaan subxaana wa tacaala waid aataynaa wadkuruu xusuusta haddana id wakti aataynaa aanu siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay waa kitaabkii towraad ayaan siinay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala nebi muuse xilli aan siinay kitaabkii towraad ah taana markaa xusuusta oo xusa waa nimco weyne waid aataynaa wadkuruu xusuusta id wakti aataynaa aanu siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana furqaankiina aan siinay lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad hanuuntaan inaad kitaabkaa ku hanuuntaan inaad furqaankaa ku hanuuntaan waad mudan tihiin furqaan inta badan kitaabka qur'aanka waa la yidhaahdaa sidoo kale kutub kasta oo rabbi soo dejina furqaan waa lagu magacaabi karaa waayo xaqa iyo baadilkuu kala bixiyaa waa xujo waadix ah macnaha waxaa loola jeedaa waid aataynaa muusaa xusuusta wakti nebi muuse aan siinay alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana xujooyinkii cadcadaana aanu markaa siinay lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad markaa hanuuntaan inaad kitaabkaa iyo xujooyinkaaba raacdaan ood ku hanuuntaan oo xumaantii shirkiga aad uga tagtaan ilaahay keligiidna aad ku caabudaan saasaad markaa mudan tihiin waid qaala muusaa liqowmihi wadkuruu xusuusta id waqti qaala uu yidhi muusaa nebi muuse liqowmihi qoomkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qoomkeeyow inakum adinku dalamtum waad dulmiseen anfusakum nafafyaalkiinii baad biitikhaadikum yeelashadiinii sababteedaad ku dulmiseen alcijla dibigii aad ilaah ka yeelateen ee fatuubuu soo laabta war towba keena ilaa baari'ikum baarigiina iyo khaaliqiina rabbigii u towba keena oo soo laabta faqatuluu laaya oo dila anfusakum nafafyaalkiina daalikum kiinaasaa khayru lakum idin khayr badane kaasaa idin khayr badan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala cinda baari'ikum boqorkiini agtiisa
rabbigiin xaggiisa taasaa idinkaga khayr badan. cinda baari'ikum markii tii ay sameeyeen ay naftoodii laayeen, fataaba calaykum, fataaba alla waa towba aqbalay marka calaykum dushiina ilaahay wuu ka towba aqbaloo wuu ku soo laabtay. innahu ilaahay huwa ilaahay attawaabu wa alla towbad aqbal badanoo alraxiimu naxariis badan subxaana wa tacaala. addoonka u soo laabtee towba keenuu towbada ka aqbalaa. midka aan soo laaban ilaahay wuu u naxariistaa in badanoo cadaabka kuma soo dedejiyo. intaasi inuu towba keenaa fursad la siiyaa. reer bani israa'iil habkii ay u towba keeneen ayaana loo tilmaamaa. habkii ilaahay uu dembigii uga dhaafayaana loo tilmaamaa. diinta islaamku waa diin aad samxi iyo yusri iyo sahal markaa u ah. saa darteed buu ilaah yidhi wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj. ilaahay diinta xaraj idinkagama dhigin. yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr. ilaahay fudeed buu idinla doonaaye culays idinlama rabo subxaana wa tacaala. intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala diinteena uu nooga dhigay mid sahlan. matalan axadku mar allaala markuu doono inuu towbo keeno annaga qaladna uu galo, rabbi buu u qoomameeyaa, dembigiina farahuu kala baxa, wuxuuna goostaa inuusan dib dambe u noqonaynin. kabacdi buu ilaahay cafinayaa subxaana wa tacaala. wax dhibaato ah, wax ceebayn ah, wax nafdilid ah inta ay doonan jirin. sidaa darteed ayagu sidaa ma ahee habkii ay u towba keeneen buu ilaahay noo tilmaamayaa toobadana looga aqbalay. wadkuruu waxaad xusuusataan id waqti qaala uu yidhi muusaa nebi muuse liqowmihi qoomkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qoomkeeyow inakum adinku dalamtum waad dulmiseenoo waxaad dulmi ku samayseen anfusakum nafafyaalkiini ayaad ku dulmiseen biitikhaadikum yeelashadiini aad ka yeelateen alcijla dibigii ilaah aad ka dhigateen. yeelashadii dibiga aad allay wax la caabuda ka dhigateen baad naftiinii ku dulmiseen. idan si laydinkaga dhaafo fatuubuu soo laabta, towba keena, ilaa baari'ikum boqorkiina u soo laabta, rabbigiin u towba keena, khaaliqii idin qalqay u soo laabtee faqatuluu dila oo laaya anfusakum nafafyaalkiina. gobolkiin gobolka kale inuu gobolka kale inuu laayo, taasaa markaa la faroo la yidhi faqatuluu anfusakum. waaya daalikum kiina islaynta ah yaa khayru lakum idin khayr badan idinka cinda baari'ikum rabbigiin agtii, rabbigiin iyo khaaliqiinii agtiisa taasaa idinkaga khayr badan. inaad islaysaan ood naftiina dishaan, dulmigii iyo shirkigii aad gasheen laydinka cafiyo, saana aad janno ku gashaan way idiin dhaantaa oo way idin khayr badan tahay inta adduunka shirki aad ku joogi lahaydeen, ka bacdina ciqaabii cadaab ilaahay idin dambay lahaa subxaana wa tacaala. daalikum khayrun lakum cinda baari'ikum fataaba calaykum. waa idinku soo laabtay alla dushiina, wuu idinka towba aqbalay. alla waa towba aqbalay subxaana wa tacaala. yo calaykum dushiina ayuu ka dhaafuu ka towba aqbalay subxaana wa tacaala. waayo inahu ilaahay huwa alle attawaabu waa alle tawaab ahoo towbad aqbal badan, alraxiimun ee naxariis badan. waid qultum wadkuruu xusuusta haddana id waqti qultum aad dhahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina ku rumayn mayno laka adiga, waxa aad sheegaysana maqli mayno, mana ku rumaynayno, waxa aad tilmaamaysa aamini maynay ilaahaad sheegayso, xataa nara allaaha ilaa ilaahay aad naga tusiso jahratan si caddaan ah. dad aad u dhib badan bay ahaayeen, heerka ay la gaareen fiiriya. sidaa darteed buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala asagoo nebiga maalin su-aalo la weydiiyey, dadkana in badan dhibaato imtiqaanaa fara badan uu nebigu u arkay, su-aalo aan daayiqayn kuwo kaleba la weydiiyey, ilaa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala, ilaa ilaahay uu soo dejiyey uuna tilmaamay su-aalaha faraha badan inay si fiican isaga ilaaliyaan, inaysan ku degdegin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum. ha weydiisanina sheeyaala haddii laydin caddeeyo aad ka xumaanaysaan.
waayo haddii laydiin caddeeyo xilliga qur'aanka uu soo degaayo waa laydiin caddaynayaa. ilaah wax badan buu idinka saamaxay subxaana wa tacaala. qoom idinka horeeyey ayaa su-aashay buu dhaha ila subxaana wa tacaala. intaa ka bacdina kuwo ku kufriya bay noqdeen, kuwa inkira oo beeniyey noqdeen. muusaa la su'aalay, faqad sa'aluu muusa akbara min haada, arrintaa wax ka weyn bay su'aaleen. faqaaluu arina allaha jahra, war ilaahaad sheegaysa indhaha noo saaray dhaheen. na tus marka hore, na taabsii aan aragno, markaasaan ku rumaynaynaa. tii buu ilaahay tilmaamayaa. waid qultum, wadkuruu xusuusta reer bani israa'iiley, id waqti qultum aad dhahdeen yaa muusaa, muusow, lan nu'mina annagu ku rumayn mayno laka adiga, waxa aad sheegayso dhanba waxaan qaadanayna ma aha, xataa nara allaaha, ilaa ilaahay aadna tusiso jahratan si caddaan ah. si cad noo tusi bay dhaheen. fa aqadatkum asaaciqatu, saaciqadii baa markaa qabatay, qayladii baa qabatay, waxaa idin qabatay. fa aqadatkum, waxaa idin qabatay marka saaciqadii, ama waa biriqdii, ama waa cadaab dusha uga yimid, ama waa lagu qayliyey. cadaab baa qaylo looga dhiga, waxuun ay ku suuxeen ayaa markaa qabtay. wa antum tanduruuna, idinkoo arkaya buu dhaha ilah subxaana wa tacaala, idinkoo arkayo eegaya ayuu idin qabtay cadaabka. saa darteed bay u jeedaan cadaabka inuu ku soo socdo. waa la sucuqiyo, waa dhacdhaceen, dhammaantood meeshay ku wada dhinteen. sidaa darteed buu ilaah tilmaamay waqti xusa aad dhahdeen muusow annagu ku rumayn mayna xataa nara allaaha, ilaa aad ilaahayna tusiso jahratan si caddaan ah. fa aqadatkum asaaciqatu, waxaa idin qabsatay marka saaciqadii, cadaabkiibaa idin qabtay ama qayladii, wixii biriq ahaa ama wixii ayagu markaa loogu talagalay in lagu cadaabo. wa antum tanduruuna, idinkoo dayayo arkaya. humma bacatnaakum, hal mar bay meesha ku dhinteen. muusewna tusi bay dheen waxaa hadlaaya sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. inta jibriil loo soo diro lagu qiiliya hal mar meesha ku wada dhaceen. mar allaala markay dhinteen buu nebi muuse yidhi, ilaahayow ma waxaad noo qabanaysaa bimaa facala sufahaa'u mina. raggan weliba ilaahayba wuxuu tilmaamay nebi muuse inuu soo kaxaystay. wakhtaara muusa way noo imaan doontaa 70 nin oo kuwa ugu akhyaarsan buu markaa soo watay. meeshuu keenay markay maqleen bay dhaheen maya, arina allaaha jahra, si caddaana noo tusi. waa lagu qiiliyay, hal mar bay meesha ku wada dhinteen. nebi muuse wuxuu ka baqay haddii meydkoodu meesha uga tago, kadibna uu qoomka dib ugu laabtay inay dhaan ileen waa dad dhib badane. muuse wuu soo dilay nimankii, ilaahay buu u tuugay, ilaah baa naftoodii ku soo celiyey subxaana wa tacaala. humma bacatnaakum, ka bacdi waan idinsoo noolaynay, macnaa waa idinsoo bixinay. min bacdi mawtikum, geeridiinnii kadib, lacallakum si aad tashkuruuna u mahad celisaanoo, lacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna, inaad shukrisaanood ilaahay u mahadnaqdaan subxaana wa tacaala. reer bani israa'iilay xusuusta xilli aad dhahdeen ilaahay ilaa aadna tusiso muusow, indhaha aad noo saarto annagu ku rumayn mayno. nabidaradoodii markay meeshaa gaartaa cadaab loo soo diray, kadib baa lagu qeyliyo way wada dhaceen ayagoo u jeeda. kadib baa ilaah nafta ku soo celiyey subxaana wa tacaala. muuse baryo alle uu baryey. humma bacatnaakum, kadib waan idin soo bixinay, macnaa waan idin soo noolaynay. min bacdi mawtikum, geeridiinnii kadib, lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna, inaad shukrisaan. xilliba haddana tihi ku dhacay. qur-aankii noogu imaan doontaay in la yiri gala ahlulmaqdes, yaa idinkoo gurguuranayana gala, idinkoo oo ilaahay u tasbiixsanayo, alla nasahayo, sujuudsanoo ilaahu noo dembi dhaaf dhahayana gala. way diideen. xaaladaa markay ku sugnaadeen baa ilaahay wuxuu ku salliday 40 sana yatiihuuna fi lardi, inay arlada tiih ku ahaadaan ayagoo ku wareersan, ayagoo tiiha ciqaabka ku jira. yaa haddana ilaahay nimco subxaana wa tacaala uu siiye darteed yuu haddana tilmaamaya. wadallalnaa, waxaan harinay, calaykum korkiina aan idinku harinay, alghamaama daruurihi. wa anzalnaa, waan dejinay, calaykum korkiina almanna, malab cereed baanu ku soo dejinay, waasalwaa, iyo shimbir dugan. kuluu cunaan ku dhahnay, ama kuluu cuna, min tayibaati maa, shaykan ugu fiicane ugu tiibsanoo rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. wamaa dalamuunaa, manaysanna dulminin, walaakin kaanuu, laakiinse waxay ahaayeen anfusahum, nafafyaalkooda, yadlimuuna, kuwa markaa dulmiyaan. reer bani israa'iil waxaan idinku harinay buu dhahay ilaahay hamaam,
ayagoo tiihii ku jira oo qoraxdii kuleel ay tahay oo dhibaatadaa ku dhex sugan yuu daruur ilaahay dul saaray subxaana wa tacaala. wadallalnaa waan harinay, waxaan ku daboolnay calaykum korkiina alghamaama daruurtii. wa anzalnaa waa xagga qoraxdii iyo waxyaabihii laga hariyey. maxaa soo haray? waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen. wa anzalnaa waan dejinay calaykum korkiina almanna, malab baanu kusoo dejinay. wax malab u eg, malab u ekaashaanu kusoo dejinayo waxay cunaanoo sida malabka umac ayaa loo soo dejiyey. ama maniga waxaa loola jeedaa waa gallad walba iyo nimco walbo ilaahay siiye subxaana wa tacaala. wasalwa waa hilib shimbireed, shimbir cayilano la dubay, la soohayo si fiican loo dubay ayaa lagu soo dejinayey. kuluu cunaanu ku niri buu dhahay ilaahay min tayibaati maa, shaykan ugu fiicanoo ugu tiibsan xaggiisa wax ka cuna oo rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. waxaan idinku arsuqnay kiisa kan u fiican wax ka cuna. waa tii markii dambe ay dheen way noo imaan doontaaye anagu mani iyo salwo ma rabno, carab gedis baan rabnaayo begel iyo diir, salbuka iyo mtaqaanaa qare iyo waxyaabo la mid ah, kaasay markaa codsan doonaan. wadallalnaa calaykum alghamaama, hamaam iyo durur baan idinku harinay. wa anzalnaa waan dejinay reer bani israa'iiley calaykum korkiina almanna, nimco fara badan iyo gallado. ama mani iyo malab u ekaashaan idinku soo dejinay, wax sida malabka u macaano si fiican loo cuno. wasalwa salwi ayaan idinku arsuqnay, shimbirahaa la dubayee la soohay. kuluu cuna min tayibaati maa, shaykan ugu fiican rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. wamaa dalamuuna, maysanna dulminin edabdaradii ay sameeyeen, kibirkii ay ku kibreen, waxyaabaha la sii qooqii ay ku sameeyeen. ha kaydsanina layidhi, way keedsadeen. subax walba asagoo cusub buu idiin imaan doonaa. waxyaabo fara badan oo noocaasa gardaradii iyo dulmigii ay sameeyeen ma aha mid annagay nagu dulminayeen. dulmigii ay galeen ciqaabka ka imaanaya ayaguu kusoo noqonaya. wamaa dalamuuna, manaysanna dulminin, walaakin kaanuu, laakiinse waxay ahaayeen anfusahum, nafafyaalkooda, yadlimuuna, kuwa markaa dulmiya. naftooday dulminayeen maahane annagu waxay naga qaadayeen ama dulmigii ay sameeyeen annaga noo soo noqonayay ma jira buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. balse qofkii xumaan iyo edabdarro iyo amar diiddo alla la yimaada ha ogaado ciqaabka ka ratibmaaya asagunbuu markaa usoo noqonaya. waid najaynaakum min aali fircawna, wadkuruu xusuusta id waqti najaynaakum aan idinka korinay min aali fircawna, fircoon ahalkiisa. yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayeen suu'a alcadaabi, cadaabkiisa ugu xun. yudabbixuuna waxay gowracahayeen abnaa'akum wiilashiina. wayastaxyuuna waxay ka xishoonayeen ee nolosha u dhaafayeen nisaa'akum dumarkiina. wa fii daalikum kiinaana balaa'un wa imtixaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday cadiimun ee markaa weyn. wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan kala bixinay bikum idinka aan idin kala furnay sababtiina albaxra baddii. fa anjaynaakum waan idin korinoo waan idin badbaadinay. wa agraqnaa waxaan maashaynon biyo cabsiinay aala fircawna, fircoon ahalkiisii dadkiisa. wa antum adinkoo tanduruuna arkayoo dayaaya. waid waacadnaa, wadkuruu xusuusta id waqti waacadnaa aan la yaboohtannay oo la ballannay muusa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen. huma kabacdi ittakhadtum aad yeelateen alcijla dibigii ilaah aad ka dhigateen min bacdihi muuse kadib. wa antum adinkoo daalimuuna, daalimiin aho kuwa dulmi falay oo shirki la yimid. huma cafawnaa, kadibna waan idinka saamaxnay, waan idinka cafinay cankum xaggiina min bacdi daalika markaa kadib. lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaanood ilaahay u mahadnaqdaan subxaana wa tacaala. waid aataynaa, wadkuruu xusuusta id waqti aataynaa aanu siinay muusaa nebi muuse alkitaaba, kitaabkii aan siinay, waalfurqaana, furqaankiina aan siinay.
xujadii waadixada ahayd ee wax kala bixinaysay lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad markaa hanuuntaan waid qaala muusa ay wadkuruu xusuusta id waqti qaala uu yidhi muusa nebi muuse liqowmihi qoomkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qoomkeeyow innakum adinku dalamtum waxaad dulmiseen anfusakum nafafyaalkiinnii biitikhaadikum yeelashadiinnii baad ku dulmiseen alcijla dibigii ilaah aad ka yeelatoon aad ka dhigateen fatuubuu towba keena war u soo laabta ilaa baari'ikum rabbigiin u soo laabta faqatuluu laaya oo dila anfusakum nafafyaalkiina daalikum kiinaabaa khayru lakum idin khayr badan idinka cinda baari'ikum rabbigiin agtiisa fataaba calaykum alla waa idiin dhaafay fataaba wuu towbo aqbalay ilaahay calaykum korkiina dib buu idinkugu soo noqdoo towbadii buu idinka aqbalay innahu ilaahay huwa alle attawaabu waa alla toobad aqbal badan alraxiimun ee naxariis badane waid qultum yaa muusaa wadkuruu xusuusta id waqti qultum aad dhahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina ku rumayn mayno laka adiga waxa aad sheegaysoo dhan ma ku rumaynayno xataa nara allaaha ilaa aad ilaahay naga tusiso jahratan si caddaan ah jahar si muuqataa fa aqaadkum asaaciqatu idabdaradoodii way badatay marka qayladii baa idin qabatay marka wa antum adinkoo tanduruuna arkaya humma bacahnaakum kadibna waan idin soo bixinay oo waan idin soo noolaynay waaye min bacdi mowtikum geeridiinnii kadib iyo dhimashadiinnii ka bacdi lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan wadallalnaa waxaanu ku harinay calaykum korkiinaan idinku daboolnay alghamaama daruurtii wa anzalnaa waan dejinay calaykum korkiina almanna malab u ekaashaan idinku soo dejinay wax malab u eg sida malabka u macaan ama gallado fara badan iyo nimcooyin badan wasalwaa shimbir cireedna waan idinku soo dejinay malab cireed iyo shimbir la dubay ayaan kor idinkaga soo dejinay kuluu cunaanu ku niri min طayibaati maa shaykan u fiican xaggii wax ka cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay way diideen way kibreen amarkii allay dhinac mareen dulmi bay sameeyeen wamaa dalamuunaa annagu manaysanna dulminin walaakinse kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafafayaalkooda yadlimuuna huwa markaa dulmiyey naftoodii dulmiyeen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala weli way noo sii socotaa waid qulna idkhuluu hadihi alqarya wabillahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam